Wanku salaamay daawada ku soo dhaw barnaamijkii maalin kasta oo Arbacaan kaga hadli jirnay aktarka caanka ah. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa tooraha reer Turki ee Soomaalida inta badan ay u taqaano Serbi. Daawada nagu soo biro ka mid noqon asxaabta ku xiran channelka. Lana wadaag asxaabtaada. Tooraha Soomaalida u taqaano Serbi magaciisa rasmiga waa Çağatay Ulusoy. Kelmadda si inta badan waxa uu akhriyaan Turkigu G waa 32 jir dhashay 23 Sebtembar 1990. Dhalashadiisu waa Turki rasmi ah. Waa jilaa sidoo kalena waa model oo intuuna ku soo biirin saaxada jilitaanka waxa uu ahaan jiray xayeysiye ama model wax loo yaqaan. Waxa toorahani uu ku guuleystay wiilka ugu fiican modelka guud ahaan waddanka Turkiga. Haddaba isla habeenkii la guddoonsiinay abaalmarinta modelka ayaa uu saxeexay heshiis uu la galay shirkadda soo saarta filimada Turkiga. waxaana loo dhiibay filimkiisii ugu horeeyay kaasi oo ka noqday atoore. شو على المحاضرة؟ كأنه نحن دخلنا على الجامعة لنفوت على المحاضرة. أنا اسمي أمير. فريحة. فريحة؟ kaasi oo ka dhigay atoore heer sare ah waana filimka Asmaytuha Fariixa. waxa uu ka noqday atoore filimkaasi. atarishada la jilisay waa Hasan Kaaliya oo aan kaga soo hadlanay barnaamijyadeennii hore ee atooraha caanka soo daawaday. Laba Asmaytuha Fariixa filimkaasi waxa uu ku metelayaa atoorahaas wiil maalqabeen ah oo magaciisu ahaa Amir Chati. filimkiisii labaad waxa uu keenay sanadkii 2013 ilaa 15. magaca musalsalkii waxa uu ahaa Medisar. waxa uu ku jilay heer atoorinimo magaciisuna wuxuu ahaa Yaman Kabir. filimkiisii saddexaad waxa uu keenay filimka loo yaqaano Inside ama hawlgalka gudaha oo ah filim af Soomaali lagu turjumay. atoorahani filimkaasi waxa uu ka keenay faa'iido badan. Serbi ma istaagin waxa uu bilaabay filimka Netflix-ka ka socda ee loo yaqaano Protector. waana sidoo kale waa filimaanta guuleystay ee uu isagu soo jilay. noloshiisa khaaska ah haddii aan u dhaadhicno aktoorahani waxay walaalayihiin wiil keliya. waxbarashada waxa uu ka gaadhay heer jaamacadeed. 2012 ayaa la xidhay isaga iyo 30 atoore oo kale. dhammaantood waxay ahaayeen reer Turki. muddo 24 saacadood uu ku jiray atoorahani xabsiga ama xarunta dembi baadhista. Serbi waxa uu noqday qof bilaa dembi ah waana la soo daayay. atoorahani waa doob ama iskaabulo. muddo 3 sano ayay xiriir lahaayeen atarishada caanka ee Sarina Sarkaya. wad ku maasantay daawashada muuqaalkan. maalmaha soo socda waxaan ku soo qaadan doonaa atooro kale oo caan ah.